ummadda aan matalayn waxaan rabaa inaan u ballan qaado in aan maaragtay uga soo baxo mas-uuliyaddaasi si muhiim ah iyagana wax walba oo markaasi matalaadaasi ay xaq uga leeyihiin dowladda dhexe oo federaalka inaan uga doono uga raadiyo madaxweyne hadda weli joogo oo waqtigiisa uu dhammaaday oo wax walba oo hortiis la soo qabtay gadaal u celiyey wax walba oo ummaddaani ay ka soo shaqaysay gadaal u celiyey tusaale waxaa idin ah 2016 markii kursigan la ii dooranayay waxaan magaalada muqdisho uga imid baabuur waxaan uga baxay habeen maqribka ah baabuur asaan muqdisho ku tagay oo casho doonta maanta lagama yaabo wadooyinkii waa wada go-an yihiin magaalada xamar dhagaxyo iyo derbiyaha ku xiran waxyaabaha ugu dhibka badan leh oo dhacay 5 sano la soo dhaafo waxay ahayd maamul isku dayay inuu waddankan u celiyo dictatornimo iyo kaligiistalisnimo mas-uuliyadda ay dhiibteen waxa ay ugu dhiibteen maamulkaas inaan saxo inaan ummadda ka kor qaadno ka kor wareejino biidnillaahi tacaala waxaan rajaynaa in sidaanoo kale codka laygu tiri doono maadaama aan ahay madaxweynaha musharax madaxweyne oo mas-uuliyaddaas aan kala wareegi doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa munaasabadaani maanta meeshan inaan uga tahniideeyo ciidamada qalabka sida oo qaarkood halkan ay taagan yihiin waxaa la joogaa munaasabaddii ciidamadaasi ay u dabaaldegayeen abuuritaankooda iyo dhisitaankooda waxaan rabnaa ciidamadaasi inaan sharaftooda darajadooda iyo dagaalka iyo juhdiga iyo dhiigga ay soo baxsheen inaan ku maamuusno ku ixtiraamno oon sare ugu qaadno isla markaasi aanan aqbalin dana gaar ah oo siyaasadeed oo mas-uul waddanka maanta jooga inuu ciidamadaas u isticmaalo